السلام عليكم ورحمة الله. waxaan maalin hore meel ka akhrinayay warbixin si qoto dheer uga waramaysa qiimaha uu martisoorku ku lahaan jiray dhaqanka Soomaalida. Horta in la sharfo oo la sooro dadka martida ah ee u soo martiya ama reerka u soo martiya in badan ayaa looga hadlay diinta Islaamka. Waxaa jira xadiis nabiga ka sugnaaday oo oranayay man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu, oo macnaheedu tahay qofka rumeeya Allah iyo rasuulkiisa iyo sidoo kale maalinka aakhiro waa inuu karaameeyaa oo uu sharfaa martidiisa iyo cidda u soo martida. Waxaa Soomaalida dhaqan u ahaa jirtay ama dadka Soomaaliyeed waayadii hore in waxaa dhici jirtay in ay si fiican u soo dhaweeyaan una sooraan martida, sidoo kale ay la wadaagaan wax walba oo marka reerkaas la soo martiyay ay heli karaan. mararka qaar waxaa dhacda ama dhici jirtay in qofka soo martiyay iyadoo uu xilligu aad u kulul yahay ama abaar lagu jiro, xooluhuna ay gureen ama aysan wax caano ah lahayn. iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa waajib ku ahayd reerka loo soo martiyay inay sooraan soona dhaweeyaan dadka safarka ah ee soo maciinka biday. caadiyan reeraha miyiga deganaa waxaa had iyo jeer u soo martiyay qof safara oo wadadii ka ambaday ama meesha reerku degan yihiinba marayay. martidaasina waxay isugu jiri kareen dad xoolo lumay raadinaya ama dad safar oo dhul dheer ka socda oo reerka habeenka u soo hiday, ama xataa waxay ahaan kareen macallimiin quraanka dadka bara oo markaas isla reerahaasna doonayay inay quraanka baraan laakiin marti ahayd oo safar dheer soo galay. markaas nolosha dadka reer miyiga iyo had iyo jeer waxa ay ka dharagsanayeen in xilli kasta dad safar ama marti ah ay u imaan karaan. sidaas daraadeed waxa ay iska xil saari jireen sidii ay magacooda iyo sharaftooda u ilaashan lahaayeen oo aanay bulshada ugu dhex eegoobi lahaayeen, martida ay u sharfi lahaayeen. haddii uu reerku leeyahay geel, waxaa martida loo qoondeeyaa hal ama laba halaad oo irmaan si martida loogu deeqo caano. mararka qaarkoodna haddii uu reerku ladan yahay waxa ay martidu ku soori jireen ama ay u qali jireen neef ariya ama geel hadba inta ay martida dadka soo martiyay la egta. xitaa waxaa dhici jirta haddii uu xilligu xun yahay waxaa waajib ahayd in martida la sooro oo la soo dhaweeyo ayadoona la eegaynin qabiilka, ama xitaa haddii ay labadaas reer ay col yihiin ama aana qabiil waxaas ay ka dhexeeyaan lama fiiri jirin. waxay ahayd mid ceeb weyn ku ah dhaqanka Soomaalida inaan la soo dhaweyn ama aan la soorin qofka safarka ah. qoyska ama reerka arrinkaas ku kacana waxa martida qadiya ama aan gogol u fidin waxa uu ahaa mid sheegan oo ku ceebo bulshada dhexdeeda, hadii jeerna lagu soo hadal qaado goobaha iskugu yimaadaan. mararka qaarna waxaaba lagu xusi jiray suugaanta oo waxa lagu tiri jiray gabayo.